السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دaawadii kusoo dhawo barnaamijkeedan waxaynu falanqayn doonaa qayb ka mid ah taxanaheennii aan diiradda ku saaraynay wadamada aan muslimka ahayn iyo taariikhda ay ku leeyihiin islaamka iyo muslimiintu iyo sidoo kale waqti xaadirkan xaaladda ay ku sugan yihiin muslimiinta laga tirada badan yahay ee ku nool wadamadaasi. haddaba aynu bilownay maxaad ka ogtahay qaabku islaamku ku gaadhay jasiiradda Taiwan iyo xaalka ay ku sugan yihiin muslimiinta ilaa hadda ku nool jasiiraddaasi. mar haddii aynu aadnay dhanka Shiinaha iyo Taiwan magacyo adag ayaynu la kulmi doonaa wixii aan dhawaaqa keeni weyno idinka ayaa soo sixi doona. haddaba wax yar daawada dib aan ku celiyay Taiwan waxay ka mid ahayd Shiinaha ilaa 1323 hijriyada oo ku beegan 1895 miilaadiga waqtigaasi oo ay Japan qabsatay iyada oo la dabaqayo heshiiskii Shimonoseki. haddaba dagaalkii labaad ee adduunka kadib markii laga adkaaday Japan, Taiwan waxay dib ugu laabatay sanadkii 1365 hijriyada oo ku beegan 1945 miilaadiga markii ay korodhay saameyntii shuuciga ee Shiinaha guud ahaan. qaybo ka mid ah ciidamada Shiinaha ayaa u guuray Taiwan oo uu hogaaminayo General Zhang sanadkii 1370 hijriyada oo ku beegan 1950 miilaadiga waxaana la sameeyay Jamhuuriyadda Qaranka Shiinaha taasi oo saldhigeedu yahay Taiwan. haddii aynu eegno mowqica juqraafiyadeed ee Taiwan, waa jasiirad ku taala koonfur bari Asia kuna taala badweynta Pacifica. masaafada u dhaxaysa iyada iyo Shiinaha ma dhaafsana 140 kiilomitir. Taiwan waxay ka kooban tahay jasiiradda Formosa iyo tiro kale oo jasiirado yaryar ah, waxaana ugu caansan jasiiradahaasi Bacadores, Kimiyu, Mansu iyo Baratas. guud ahaan bedka Taiwan waxa lagu qiyaasaa 63962 kiilomitir. caasimadeeduna waa Taibiya. jasiiraddu qaab ahaan waa afar geesood waxayna u dheer tahay dhinaca waqooyi iyo koonfur. dhulkeedu waxa uu ka kooban yahay meelo buuro ah iyo meelo banaano joog hoose ah. waxay leedahay webiyo yaryar oo si degdeg ah u qulqulaya. tirada dadkeeduna waxa lagu qiyaasaa 23.4 milyan oo qof, waana tirakoobkii 2021 la sameeyey. bulsho ahaan dadku waa beeraley, ilaa 2 milyan oo hektar ayaa la beeraa. wax soo saarka bariiska ayaa ah ka ugu badan oo ilaa kala badh dhulbeereedka ku fidsan. caananiska iyo sonkorta ayaa ka mid ah wax soo saarka muhiimka ee dibadda loo dhoofiyo. sidoo kale Taiwan waxay horumar ka samaysay waxbarashada, warshadaha iyo tiknoolajiyadda. islaamku waxa uu jasiiradda Taiwan yimiday qarnigii 11aad ee hijriyada oo ku beegan qarnigii 17aad ee miilaadiga markii ay ka soo guureen tiro qoysas muslimiin ah gobolka xeebta ku yaala ee Fujian ee koonfurta Shiinaha oo uu horkacayo taliye Koxinga iyaga oo lala ka dhanaa Holland ku doonayay in lagaga saaro koonfurta magaalada Tainan. sanadkii 1661 miilaadiga waxa uu taliye Koxinga soo dhisay boqortooyada loo yaqaano Tongning. inkastoo ay ahaayeen muslimiintii ugu horeysay ee degta Taiwan, haddana faracoogii waxay ku biireen bulshooyinkii kale ee Taiwan ilaa ay gaareen heer ay ka tageen islaamnimadoodii. muslimiintaas soo hijrootay kama ay tegin taalooyin islaami ah, masaajida iyo calaamado u gaar ah muslimiinta. kadib markii ay Japan ka talinaysay Taiwan muddadii u dhaxaysay 1313 ilaa 1364 hijriyada oo ku beegan 1895 ilaa 1945 miilaadiga, markaas oo Japan ay caburinaysay caado kasta oo diineed. sidaas darteed Taiwanese-kii muslimka ah waxay ku qasbanaadeen inay qariyaan diintoodii iyo caadooyinkoodii. intaa dabadeed waxa uu soo hijrooday Taiwan muslimiin badan oo ka imanayay Shiinaha cadaadiska saarayay. muujadii u horeysay ee muhaajiriin muslimiin ah waxa ay ahaayeen 20,000 oo qof, balse sidii kuwii hore oo kale wax saameyn ah kama ay tegin, bale iyaga ayaaba diintoodii ka tegey. sanadihii ka dambeeyay 1945 waxaa soo tirayay muslimiinta u soo hijroonaysa Taiwan, waxaana sanadkii 1949 soo gaadhay 20,000 oo qoys oo hogaaminayo General Bai Chongxi. difaacadan muslimiinta ah ayaa noqotay kuwo aad ugu dhagan diintooda. markii ay yimaadeen waxay jasiiradda Taiwan ka hirgeliyeen masaajidkii ugu horeeyay sanadkii 1947 kaasi oo ah masjidka weyn ee Taibiya oo ku yaala caasimadda Taibiya. waxayna fidisay buundooyinkii dunida islaamka markii ugu horeysay oo ay isku xiraan muslimiinta Taiwan iyo caalamka. marka la eego mawjadii saddexaad ee socdaalka waxay dhacday 80-aadkii qarnigii 20aad markii kumanaan muslimiin ah oo Myanmar iyo Thailand ka soo jeeda ay u soo hijroodeen Taiwan si ay u helaan nolol dhaanta tii ay ku noolaayeen. qaar badan oo iyaga ka mid ahi waxay degeen wadada Hoxin ee degmada Shachungi ee New Taibiya, degmada Shungali ee Taiwan iyo qaar ka mid ah magaalooyinka kale. tirada muslimiinta Taiwan waxay gaadheen 3% dadka ku nool jasiiraddan markii loo eego tirakoobkii la sameeyay 2020. qiyaastii 70,000 oo muslimiin ah ayaa ku nool caasimadda Taibiya iyo qaar kale oo magaalooyinka kale ku nool sida Shugali, Tichungi iyo Shiwanga. muslimiinta halkaasi ku nool waxaa ka mid ah kuwa ka soo jeeda Shiinaha, Turkiga, Igoorka iyo Kazakhstan. in ka badan 180,000 oo muslimiin ajaanib ah ayaa sidoo kale ku nool Taiwan, kuwaasi oo ka kala yimid Indonesia, Malaysia, Thailand iyo Philippines.
sidii aan hore u soo xusnay muslimiintu waxay leeyihiin masaajid waaweyn oo ku yaala caasimadda iyo qaar ku yaala magaalooyinka kale sida Taishing iyo Chongqing halkaasi oo ay ku yaalaan in ka badan 10 masaajid. waxaa xusid mudan in masaajidka ugu weyn uu ku yaala magaalada caasimadda ah ee Taipei. muslimiinta Taiwan waxay haystaan madhabka Xanafiyada, khilaafkooda diineedna aad ayaa u yar yahay. dhanka kale waxay haystaan xorriyad diineed oo waxay ku dhaqmaan caadooyinkooda, ciidahooda iyo dhammaan shacairtooda iyagoo aan wax cadaadis ah la kulmin. sidoo kale qaarkood waxa ay ku milmeen siyaasadda oo waxa ay ka gaareen xataa jenaraalo iyo madaxda ciidanka. muslimiinta Taiwan waxa uu adeegay hay'ado islaami ah oo ay ka mid yihiin Jimciyadda Islaamiga ah ee Shiinaha ee Taipei oo gacanta ku haysa masaajidda iyo waxbarashada Islaamka. Jimciyaddu waxay xiriir la leedahay ururka dhalinyarada muslimiinta Shiinaha iyo ururka dhaqanka Islaamka ee Shiinaha. waxay leeyihiin mashaariic dhowr ah oo ay ka mid yihiin turjumidda macnaha Qur'aanka Kariimka ah oo loo rogay Mandariidka Shiinaha kuna turjumay kutubta Islaamka qaarkood. Mandariin waa lahjad ka mid ah afka Shiinaha. caqabadaha ugu weyn ee hortaagan dadka muslimiinta ah ayaa waxaa ka mid ah inay awoodi waayaan inay tukadaan salaada Jimcaha sababo la xiriira barnaamijka shaqada oo aan fasax bixin marka laga reebo maalmaha Sabtida iyo Axadda. waxaana muslimiinta ku adag in waqtiyada salaada xilligooda ay ogaan sababo la xiriira saacadaha shaqada. waxaan filayaa inaad barnaamijkan si fiican uga bogateen. haddii aynu barnaamijyadii hore ku soo qaadan jirnay muslimiin ku dhiban dalalka ay ku nool yihiin, Taiwan waxay ka mid tahay dalalka ay muslimiintu ku haystaan xorriyad diineed inkastoo aanay ka madhnayn kooxo mucaarad ah oo cadaawad u muujiya muslimiinta. barnaamijkeeni maanta intaas uu ku eeg yahay. fadlan haddaad muuqaalkan ka heshay like saar, siina sheer garee barnaamijka si uu gaaro saaxiibo kale oo danaynaya inay mawduucyada noocan nala ogaadaan. mahadsanid.